بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga soo dhawaada dhamaantiin. maanta waxaa idiin wadaa muuqaaladeena hore ka duwan. maasha Allah waa casuumad aan u sameeyay saaxiibaday waan jeclaystay idinkana inaan idinla wadaago qaabkii aan u sameeyay iyo sida hawsha iskaga kala fududeeyay. maasha Allah saa u jeediin. fadlan channelka hadaa ka cusub tahay subscribe dheh, videogana like saar. asxaabta hore noola joogta idinkana waa mahadsantihiin. maasha Allah haddana videogayga aan sii guda galayaa. asxaabay halkan waxaa iigu jiro waa digaaga waxaa ka fiiqayaa maqaarka ama aan ka diirayaa. maqaarka dhan ayaa ka diirayaa maxaa yeelay maqaarka hadhow biyo badan ayuu igu dhalayaa ovenka markaa geliyo. marka maadaama aan rabo inaan foil ku xiro, maasha Allah foilka waxa ugu xiraayana waxaa waaye digaag keligiis ma gelinayo. waxaan rabaa carrot iyo baradho inaan la geliyo. marka asxaabay haddii kale baradhadii carrot-ka way iga gubanaysaa. marka hadda digaagii halkaa kusoo diyaarsaday waxaa ku daray waa huruud, toon, basal powder maasha Allah haddana saliid ayaa kusoo daraya. waxaa kaloo ku darayaa maraq digaag, wax walba oo guriga ku yaala asxaabay oo digaaga aad ku dhanaansan karto ayaa ku daraysaa. maasha Allah haddana waa isku soo labayaa, waa isku soo walaaqayaa, si fiican ayaa u gaargaarsiinayaa. digaaga ayaan ka bilaabay si cabaar ah ila sii taalo. digaaga waxyaalaha aan marmariyay inay lafta ka gasho ayaan rabaa asxaabta. inta digaaga ay noo marinate garaynayso waxaan sii fiiqanayaa baradhadii iyo kaaroodkii oo aan rabo maanta inaan la geliyo digaaga. maasha Allah si khatar ayay iskugu soo baxaysaa, dhadhan fiicanna way u yeelaysaa baradhada iyo kaaroodka. digaaga waxay u baahan tahay waqti badan ay ku karto, marka saas waaye sababta aan rabo inaan foil hadhowti korka kaga xiro si ma aragtay ee baradhadii kaaroodka ay gubanin. marka digaaga markaa foilka alaabta markaa isku darto oo foilka aad ku xirto asxaabay biyo yar ee digaaga ku dhalaysaa oo huurkaas kadibna 30 daqiiqo kadib adi waa ka bixinaysaa, foilka ka fiiqaysaa kore, kadib waa ku celinaysaa digaaga. dabka markaa ku celisid xoogaa markaa haddana waa u sugaysaa inay isla gaduudato ee korka markaa ka bislaato. maasha Allah haddana baradhada ayaa fiiqanaynaa. baradhada waxaa u jarjari doonaa si kuus ah oo yaro waaweyn xoogaa waa intusayaa insha Allah. kadibna karootada ayadana sidaas oo kale waa hoolayaa, kadibna waa jarjarayaa si waaweyn ayaan u jarjarayaa. baradhada, kaaroodka iyo digaaga insha Allah waa isla gelinaynaa saddexdaas ovenka. haddana asxaabay saa u jeedaan karootada ayaan fiiqayaa. karootada ayaan diirka ka dhigayaa. maasha Allah saas u soo wada fiiqayaa. baalkan aan ku fiiqaayo aad ayaa uga helay aniga, shaqada ayuu ii fududeynaya, dhaqso ayuu ii fiiqayaa. midda kale qolof badan ma ka diiraayo. qudaarta oo kale mindi hadaa ku jarjaraysid waxaa laga yaabaa inay diirka uu raaco ma fahantay. marka baashan xoogaa hawl fududeysna way tahay, diir badanna ma ka raacayo. saas ayaa kusoo dhameynayaa kaaroodka, kadib waa isku soo noqonaynaa. nala socda fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe dheh, videoga asxaabtaada la wadaag, commentiga kusoo dhiibo wixii fikrad ah.
waa kana asxaabay saaskas ayaa usoo jarjaray baradhadii iyo kaaroodkii. Haddana biyaha ayaa kasoo daadiyay. waa kana waxaa ku darayaa cusbo yar si ay dhanaan u yeelato ayadana maasha Allah. wax yar oo cusbo ayaa ku daray, wax kale kuma daraayo. halkan asxaabay waxaan soo dhigtay batradii aan ovenka la gelin lahaay. kadibna waxaan soo saartay waa foil ayaan soo saaray. haddana digaagii oo cabaar inoola yaalay alaabadii aan marmarinay ayaan kusoo safayaa. digaagii ayaan soo safayaa. kadib waxaa kusoo darayaa karootadii iyo baradhadii. alaabtan markii la isku dubo asxaabay maasha Allah macaanka ma maleyn kartid. maasha Allah iskama deynaysid. wax yarka ee maartay iiga haray weelkii ayaan rabaa inaad digaaga soo marmarisa u jeediin. maasha Allah haddana waxaan kusoo ridayaa waa baradhadii iyo kaaroodkii. cusbo yar ayaa mariyay, wax kale ma marin baradhadii iyo karootada. saas ayaa ugu soo gurayaa. markaa kulli kusoo wada guro kadib ayaan saa hore idinkugu soo sheegay foilka ku xirayaa. foilka sababta ugu xiraaya asxaabay waan idin soo sheegay. waxaa waaye digaaga si ay si fiican ugu bislaato baradhadana ay iiga gubanin ayaan foilka ugu soo xirayaa. wax yar kadibna 30 daqiiqo markay ku jirto waa kasoo bixinayaa. foilka kore waa ka qaadi doonaa insha Allah. 30 daqiiqo kale ayaan dubayaa si korka ay guduud qurux badan uga noqoto, karootadii iyana aysan u gubanin. diyaar waa asxaabay digaagii ovenka ayaa gelinayaa. kadibna qaybteena kale ayaa u gudbaynaa. halkan waxaa ii yaalo caysh ayaan ku sameyn rabaa iyo cinnamon roll. hal mar ayaan wada qasayaa asxaabta si hawsha ay iiga fududaato. waa 1 kiilo oo bur ah, wax yar oo sokor ayaa kusoo daray iyo 2 qaado oo faxiso ah. asxaabay wax walba oo maanta sameynayo kulli ma idin wada tusi karo maxaa yeelay videoga ayaa aad idinkugu dheeraanayo. hadda wax yar oo cusbo ayaa kusoo daray. cayshkii ayaan walaaqayaa. cayshka ayaan soo qasayaa kadib waa isku soo noqonaynaa. diyaar waa asxaabay cayshkii iyo cinnamon rollkii waxaa ugu talagalay meel ayagan dhigayaa si igu faxaan. intuu cayshka ii faxaayo halkan waxaan ku sameysanayaa suqaarkii cayshka lagu cuni lahaa. waxaan kusoo shubtay waa saliid. waxaan kusoo daray basal 1 xabo. suqaarkii hilib geel ayaan isticmaalayaa. hilibka geela awla horay aan biyo oo la sii saaray si uu u jilco. waxaa la rabaa geel miyaa mise ari in la kala garan waayo ma fahanteen asxaabay. marka maasha Allah hadda hilibkii oo karsan ayaa kusoo daray, biyo kuma daraayo. baradho iyo kaaroot ayaa kusoo darayaa. baradho iyo kaaroot iyo xawaajiyaasha ayaan kusoo darayaa. waa la isku dhanaaninayaa. intaas waa isku daboolayaa. markuu isku huuro oo maasha Allah kaal iska arag uu noqdo ayaan ka daminayaa dabka insha Allah. waa suqaarkii lagu cuni lahaa cayshka. maasha Allah saa u jeediin waa isku yara shiilayaa intaas. haddana waxaan kusoo darayaa xawaajiyaashii. nala socda asxaabta. cusbo ayaan kusoo daray saa u jeedaan. cusbo yar ayaan kusoo daray. haddana waxaan kusoo darayaa waa basal shiidan. caraf ayay u siyaadinaysaa iyo dhadhan maasha Allah. wax yar oo huruud ayaan kusoo daray. huruudda aniga aad ayaan u jeclahay inaan isticmaalo because cuntada waxay siisaa kalar fiican. waana caafimaad asxaabta huruudda oo maasha Allah cuntada lagu darsado waa wada taqaaniin. waxaa kaloo kusoo daray toon powder ah. haddana waa isku labayaa, waa daboolayaa. qaybteena kale videoga ayaa u gudbaynaa. halkan waxaa ii saaran digsigii aan bariis ku karsan lahaay. saliid ayaan kusoo shubay iyo basal. haddana waxaan kusoo darayaa bariiskii. bariiska sidoo kale wixiisa dhan ayaa usoo dhammaystirayaa. asxaabta sofa waxaa soo sameysanay hadda intuu videoga noo socday digaagii iyo baradhadii ayaan soo sameysanay. waxaa kaloo xashanay cayshkii
maasha Allah asagana meel ayuu noo yaalaa hadhow ayaa dubaynaa intuu nooga faxaayay waxaan rabnaa intaan sii sameysano ceyshka suqaarkiisii iyo bariiska maasha Allah howsha way kaa kala fududaanaysaa adiga oo dareemin daal iyo rafaad iyo tacab ayaa shaqada dhammaynaysaa asxaabta maasha Allah waxaa kusoo daray toon basal huruud maasha Allah hayl ayu nooc caraf ah haysatid iyo waxyaalaha cuntooyinka lagu darsado ayaa ku darsanaysaa waa kasaa hadda waa haylkii asxaabta caraf ayuu u siyaadinayaa maasha Allah bariiska markii hayl lagu daro aad ayuu caraf badan yahay asxaabay fiidiyoyaasha maanta muuqaalka maanta waxaad ka heshaan insha Allah nooca ka heshaan commentiga noogu soo qora waxyaalaha aan karinayo waxaa ka heshaan commentiga kusoo gudbiya markaas ayagoo kaligood ayaan idiin soo gelinayaa channelka insha Allah hadda sharaxaad badan kama bixinayo cuntada because ma rabo inaan ku dahdaaho laakiin sheyga aad ka hesho for example hadaa aad ka hesho bariiska tusaale ahaan commentiga iigu soo qor bariis noo soo geli insha Allah waa idiin soo gelinayaa fiidiyogana share dhaha please aad ayaa u mahadsantihiin asxaabta inta nagu taxan sharaf iyo karaama leedihiin waa mahadsantihiin sida garabkeena u taagantihiin maasha Allah oo muuqaaladeena u daawataan aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa asxaabay biyo kulul ayaa kusoo biyey bariiska biyo kulul ayaa kusoo biyeynaya hal garaafo oo biyo kulul ah kadibna waa daboolayaa waxaan sameysanaynaa cabitaankii maasha Allah laba nooc cabitaan ayaan sameynayaa asxaabta hal mid ayaa idila wadaagaya insha Allah waa beetroot cabitaanka hadda idila wadaagayo xabad beetroot ah xabad cambe iyo xabad avocado ayaan soo shiidayaa maasha Allah alaabtan dhiiga ayaa aad u soo celisaa beetrootka dadka dhiig la'aanta ay hayso maasha Allah hadaa mar walba beetroot aad cabtid aad ayuu dhiigaada u badanayaa mar dambe ma ka caban doontid dhiig la'aan cambahana sidoo kale fitamiinaadkiisadana kama sheekeynayo waa taqaaniin marka intaan ayaa isku soo shiidayaa cambaha avocadada iyo beetrootka cabitaankeena kalena qara ayaa rabaa inaan ka sameeyo marka maasha Allah nala socda asxaabay haddana muuqaalka qaybtii dambe ayaa soo gaarnay waxaan soo dubayaa hadda ceyshkii waxaan u kala baray laba qayb ayaan u kala baray ceyshka qayb waxaan u reebay cajiinka waxaan u reebay inaan ka sameeyo cinnamon roll qaybna waxaan ka sameynayaa ceyshka maasha Allah waa hawl fududeys laba wax ayaa waxaa ka sameysan kartaa kasoo dhex saaran kartaa hal bur ood sameysay marka maadaama ceyshka iyo cinnamon rollka ee isku wax lagu qaso saas ayaan sameeyay hadda ceyshka ayaan soo dubanaynaa saa u jeediin maasha Allah quruxda maasha Allah ma maleey kartid hadda waa soo jarjarayaa si qurux badan oo maasha Allah presentationka la fiican yahay ayaa u soo jarjarayaa miiska markaa soo saaro ayaa arki doontiin insha Allah waa u jeediin si uu gaduudan yahay waa maasha Allah inaba caadi ma aha diyaar waa asxaabta haddana waa kana cinnamon rollki waa soo laalaabay fiidiyogana idinku dheereeyay ma rabo nala socda maasha Allah tabaarakallah asxaabay casuumadeeni waa kana waa soo wada diyaarsanay wax walba miiska ayaa soo saaray bariiski waa kana maasha Allah sida quruxda badan oo kusoo baxay waa u jeediin ceyshkii qaabkaas ayaan usoo jarjaray maasha Allah tabaarakallah indhaha ma u roono asxaabta fiidiyoga fadlan like ka hilmaamina asxaabtaadana share u dheh fadlan aad ayay noo caawinaysaa taas channelka in dad badan ay kusoo xirmaan ayay ka caawinaysaa salarkaasna ma idin duubin laakiin waan soo jarjaray waa soo sameeyay insha Allah mar ayaa idin soo gelinayaa waa kana digaagii iyo baradhadii karoodka la isku soo shiilana sidaas quruxda badan ayay kusoo baxeen cinnamon rollki waa ka markaa soo dubay maasha Allah lagama sheekeyn karo qado qurux badan ayaa meesha ka soo baxday
fadlan haddaa intaan soo gaartay fadlan asxaabta la share garay channelka video like badan saara commentiga kasoo bixiya fikradihiina wax alaala wixii aad rabto inaad noo sheegto qaybta commentiga noogu soo gudbi. Wassalaamu calaykum.